musuq maasuq yahay si aad uga marsataan micnuu haydin dhece ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal idil ahaantiin baa meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkii gaarka oo kaga hadlaynay dhibaatada musuq maasuq uu leeyahay iyo sida looga hortagi karo kana mahuraanayo wadaha loogu dhaco waqtigan barnaamijka gaarka oo kaga hadlaynay dhibaatada musuq maasuq uu leeyahay waxaynu ku eegi doonaa qayb kamid ah musuq maasuqa iyadoo qaybaha dambe barnaamijka martida ay nagala qayb qaadan doonto isla markaana dhageystayaashu ay qaadka teleefanada barnaamijkan kaga qayb geli doonaan fikirkoodan ay ka dhiibanayaan balse sida caadada u ah barnaamijka dhageystayaal waxaan ku horumarnaa qaybta sheekada waxaana barnaamijkan gacan ka geysanaya hay'adda marqaati balse marka hore sheekadii ku saabsaneyd musuq maasuqa aynu wada dhageysano musuq maasuq yahay siyaad uga maarsataan micnahu haydin dhece ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga marsataan micnuu haydin dhece ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal ku sheegaya horta maanta waxaan soo ogaaday ninkii saaxiibkeen ahaa oo walaalkeen ahaa oo tolkeen ahaa wallahi waxa la yiri gurbaan gacalkaaga ku hayo ama garabkaaga kugu jiro maanta ninkii waa la doortay maxaa loo doortay xil culus ayaa loo dhiibay oo hadda qeyraaba afkaada ka baxay ma la doortaa waa la doortay anaa dhageystay raadiyaha ka dhageystay nin magac ahay ninka maya saddexdiisii magac meesha uu ku dhashay wixiisi oo idil ayaa la sheegay waan maqlay saakay waa la doortay waxaan ka rabaa inaan u tagno in aan u sheegno aqliga iyo maskaxda ka maqan waxa la yiri walaalka uu ku jira waxa laga yaabaa ninkaas xilka uu maanta hayo in uu macnaha bilbadalan oo berito macnaha asan waxba hayn markii laga qaado waa ogtahay baashaan waa shaatiga waa lagu dhiiba oo laga qaadaa waa shaati tabal caraw ninka soo qaadatay dhowr maalmood adaa iskale marka istiraal lagu leeyahay iska keen marka in aan inta wada tagno anaga ma u tagayna masii noo yeeraayo waa u tagayna anaga u tagayna anaga barnamna inaan ka dhaadicino u sheegno aqliga ka maqan anaga uu nagu jiraa aqliga ka maqan anaga xataa waan ilaawi no inuu sina ilaawi waxaan rabnaa bacdama ninkaas la magacaabay waxaan rabnaa inaan u tagno anaga oo ka dhaadicino anaga beeshiisa anaga dadkiisa
maadaama annagana uu na iloobay nin waa loo caqli celiyaa waa loo tagaa jaaniskan ka faa'iidaysaa la leeyahay waa kula qaatay waa loo sheegay waa u sheegaynaa laakiin waa inaad gogol gurigaada dhigtaa tolka kale waa inaa u yeernaa waa tahay baasha waxaa waaye meelsaka uga soo harimayno meelsaka uga soo harimayno haye waa tahay waxaa rabaa wiilashii gabdhaha noogu yeer haye maxamed haa adeer see tahay waa fiicanahay ma alxamdu ladan tahay aadaan u fiicna reer alxamdu ilaahay mahadi haye muxibo ها ma fiican tahay فيعن haye نبض xaaladda ka waran غير الحمد maasha allah maryanay haa ii waran waan fiicanna horta waa lees waayey si fiican waa lees waayey si fiican bacdamaa lees waayey waxaan rabnaa in aan kala war qaadano aad iyo haye waxaan rabnaa in aan berri isku imaano si fiican haye. beri Xagee? gurigaygaad ku casuuman tihiin هيا gurigaygaad qada ku wax leedihiin daran baa jira adeer wixii jira waa isku sheegayna haye waxaa la yidhi biyo sacbadaada looga dhargaa si fiican hadalna salfadhi Si fiican. markaan sal ka dhiganno Ha. oo cad calool buuxda laakiin ma wax daran jiraan Maya, Isku sheegay. wax dhibaataa ma jiro Ilaahay. hadda isuma sheegi karno waxaan rabaa gurigaad qada ku leedihiin isu keenkeen قادة في على نو دياري qadan nabadeed allah ka dhigo haye waa maasan aad iyo aad haye waxaan kuu sheegayaa haye musoobala bisaqraa ehlig waa soo socdaan haye waa imaanayaan haye qadadiina waa la Haye. diyaariyey xaafadii waa martidii waa loo diyaar garoobay waaba yimideen ba albaabka laga soo gudbi miya maxamed ka fur albaabka albaab ka fur maxamed soo gudbi maxamed haa adeer soo gudba ha soo haye gudba haye حرين حرين haye soo geliye حرين horta waxaa la yidhi si fiican wareer cawo waa loo wabarista waan bedelnay aan fariisano alxamdulillah wareer haye cawo waa loo wabarista waa loo waabaristaa xalay ayaa arrin nagu dhalatay waa saas ninkii adeerka ahaa haa ninkii adeerka ahaa ehe ninkii adeerka ahaa si fiican oo adeerkiina ahaa haa horta waxaad ogtihiin in la doortay هيا si fiican in xil loo doortay adeer xaaji miya haa Hay. xil baa loo doortay عجيب. هيا waxaa loo dhiibay hay-adaha ugu awooda badanaa loo dhiibay waa Haye. saas xil haye ka weyn ee la siin lahaa beesheenna ma jirto si هيا fiican هيا beesheenna markaan waxa waaye garab bay dowladdu siisay هيا si fiican xil aan u qalanno ayaa loo dhiibay si هيا fiican waxaan rabnaa meeshaan in lagu nagaan maayo laakiin ninka aqoontiisu ku gaaray waa tahay waxaan kaa rabaa aqoontiisa wuu ku gaaray Haye. laakiin yuu ha ka tegin beeshiisuu ku Aqooni helay wax looba ka beeshiisuu ku helay si Ah. fiican nin qaran oo si walbay ahaatana waxaan kaa rabaa haa ninkaasi xilka uu hayo horta anagu noo haya shacabka بيشي سو هايا بيشي shacabka dhe beeshiisa uu haya بيشي سو هايا وارون gabadh waa kaa saxan tahay maxamed yaad ibn adeega horta beeshiisa uu haya kuwad sida nafta مقعينو كوهلا حلك magaceena ku helay ها haye waxaan rabnaa ninkaasi inaan u sheegno oo mar labaad u sheegno inta uu xilka hayo in uu ka faa'iidaysto ها ee berrita markii sidee ah, laga faa'iido sidee berri ah? markii laga qaada inuu xilka ummadda u أصلا faa'iideeyo جف جف inuu ka هاي اللي faa'iidaysto ka قادوا oo faa'iidaysto isbitaallo iyo dugsiyo iyo wax wadooyinka dhiso ninkan mujada madaxa biyo uga jiraan walaalo ninkan waa inuu isbitaallada dhisaa iyo dugsiyada maya horta in guriga lagu doodo looma imaan waxa laydin leeyahay qaata annaga odayaashiinaan nahay waalidkiinaan nahay ninkaa u soconna waxaa waaye xaajiga reerka waay صح وصح waxa uu qabtay iyo mas-uuliyadda u hayo annaga wada dhexayda annaga adeega annaga ما أنت مقعينو وح كوهلا وح إنه نوقف توا أصلا إنه وح قبصة بري مركو ماشي كتجا سو وح حسينو haye ماشي bal adeeroo noo dhamee bal ما قلدت كده وح كوشيء adeeroo noo dhamee bal hadalaad noo waday Ali. wacda noo sheega warkii jira baa saa imaanaya waxaa la yidhi nin soo jeeda lama kicin karee Si fiican. nin jiifaa la kacsha aad iyo aad niyo waa soo jeedaa kumana kicin karo haye waxaan kaa rabaa ninkaasi inaan u sheegno intuu xilka hayo inuu ka faa'iidaysto wixii jira ka way soo baxayaan faa'iidaysto iska daa waxay wadaan oo arkana aan magac ku yeelano Ah. oo la yiraahdo nin hebel oo ummadda wax u qabtay beeshaasuu ka soo War jeeday oo ummaddaana wadooyinka beeshaan iyo wax u qabtay isbitaallada iyo dugsiyada iyo haddaa wareegto Beeshaan maqal inay adiga magac ku hesho haddaa Soomaali. wareegto wax looga qaadaya intaa wareegto wax looga qaadin waa inuu boosas gataa waa inuu dhul gataa waa inuu hanti ka tabcada بابور إيه waa inuu دبقية wax ka دبقية dhigtaa. دبقية allahu akbar waxa dhan oo inuu wax qabtaa aad lahayd ma inuu isagu wax tacbadaa naftiisa banaankan ka ahay Banaanka ma- taas ma idinla qaadan Lagu kala karaa kaxeeyo. sidoo kale banaankaa ka Lagu taaganaa kala kaas wada. Na keena raalli ahaw na keen aniga gabartayda maxubaaya xaajiga nahay raalli ahaw raalli ahaw na keen maryan iyo maxamed warkooda iga dhaaf ma xubu soo bax adiga adeer xaaji aan tegaynaa maanta adeer haa see tahay waa
وفعلا الحمد لله xaaladda ka waran خير ilaahay mahadi نبض horta farta malabka waa ay kugu jirtaa ninka waa cayile sida madax loogaga dhigi ka war waa cayile waa caddaadeen الحمد لله horta farta malabka waa kugu jirtaa صولكنا وين قلنا waa intaa suuqa gelina lagaa siibayaa fartee intaan lagaa siibin caqli wehesho هي tabca bahasha طبعا باشا bahasha tabco هي waad og tahay wareegta socotaa kuu imaanaysa Haye. intaan wareegtadu kuu imaan Ha. farta malabkay kugu jirtaa suulka iyo faryarada iyo murugsata kulli waa inay gaaraan waxaan ku oray ah aniga waxa la ii dhiibay ma aha xil sare haye waa degmo weliba waa meeshu waa meel tuulo ah gobol ah meesha aan joogno waa iska beeralay un ma aha wax sare Aha. waa iska tuulo beeralay ah marka maxay tartaa Fiiri. tuulada wax laga qabsadaa Adiga. tuulada wax yaalaan wax nooga qabo horta xil yaraan ma leh xil yaraan male midaasaan kuu sheegaya hay xil yaraan wax yaraana ou leeyahay ma leh hay wixii ehelku ii soo gooyo code aniga waxaan kuu sheegayaa horta xilkan waxaad ku heshay u sheeg laakiin igaarkiisa maxamed ahaa iyo maryan inay war diideen u sheeg ay ka soo horjeedaan waa tahay horta dadna waa kaa soo horjeeda annaguna waa kula jirnaa waa habartii weyneed oo reerka maryan Maryan. iyo maxamed kacsan yihiin kuwa kaa soo horjeedaan laakiin anigu waxaan kaa rabnaa daagmada aniga laftiga shaqa iyo yaal shaqo waxaad ii keentaa Ha. laga bilaabo saacad horta tolka waa inaan ka helaa ilaa 50 wiil haye oo hubaysan ilaalo soo majeestayaal ah Aha. waxaan u diranay yeela Haye. waxay arkaanna booba haye war gabdhaha xitaa waa la hubeenaa nimanka iska dhaaf gabdhaha la hubeenaa gabdhaha ya gabdhaha la hubeenaa nimanka iska dhaafe ha waa sax xaaladan uma sahlana waxaa la yidhi nin walba oo mas-uul ku ah dadkiisa wallahi maxamed waa ka fiican tahay qadiyad xaniinyaas yaa ku dhalahe muxub rag waayo marka waxaan kaa rabaa ii kaadi taladaas waa ila qaadat waa ila qaadat waa mahadsan mahmaaba waxay ahayd macala cune muuqan doone musuqa cune muuqan doone macala cune muuqan doone musuqa cune muuqan doone ninkii malabsiga barto komishin baa maanta jira mintiga soo afaystayo musuqa dabargoynayo sharciga meel marinayo mareegtiya dabinka dhigan ismoogaan ha ugu dhicin ismoogaan ha ugu dhicin mahmaaba waxay ahayd macala cune muuqan doone musuqa cune muuqan doone macala cune muuqan doone horta waa ogeed fadhigii tolka inaan kusoo kala tagnay haye oo cimaamadaha iyo bakoorada idoo la filqaya aan meesha kasoo baxay sax gabdhaheenna intana raacsanaayna xitaa jalbaabada inay tuuraan ay ku dhawaateen waa sax waxaa waaye waxaan socda horta wax la aqbali karo Ama ma la ahan qaadan karo ma ma ahan dadkan habhableynayana waxay ka talinayaan beesheenna inay usoo waduna dileen jiidaan salkaasi u cararayaan dadkan si fiican beesheenna inay usoo jiidaan sumcad xumo iyo ceeb iyo magac xumo inay noo soo jiidaan Ah. waxaan taariikhay gelayaan sax aan adeerkeen la ma kulanno habeenkii kaa tagab taariikh unbuu reebi si fiican aan adeer la kulanno had xilka aad qabatay waa xil qaran aan dhahno waxaan beeshu ay kaala daba carareen meel iska dhiga ummadaada u shaqeeya sax way marin habaabinayaan waa Si fiican. intaasuu naga qaata waa inaan u tagnaa dadka uu ka dhashayna waa dadkiisiyo ma huraayo laakiin xilka uu haayo ummadoo dhan uu u haayaa wax fiican hadduu sameeyana dadkiisa unbuu u sameeyey uu sameeyey hadduu wax xun sameeyna dadkiisa unbuu kula soo aan laabanaya ka hortagna marka khatartaan soo socda haye haye namari namari haye yaa waaye waryaa waayo ha adeer see tahay waa wiilkaagii maxamed ها محمد ستادر waa fiicanahay soo dhow xaaladda ka waran وفعنا الحمد لله ilaahay mahadis waa kuu soconnay aniga iyo gabdhihii baa isla soconna waxaan rabnay maanta inaan fadhiisano aan kuu wada sheekayno aan horta marka horena kuu hambaleyno xilka aad qabatay kuguna duceyno ilaahay kuu fududeeyo iska ciltuulo kowdhe degmo iyo gobol iyo weli ma aanan gaarin si fiican laakiin adeer adiga doqonnimadaada ii soo hormartay maya may sida wax leegaga soo kaa sheegay geesiga aan kaa filaya kowdhe si fiican oo wixii reerka usoo dhaca inuu difaaco u dhinto ogol si fiican waxaa la ii sheegay inaad nin aad u hooseeyo tahay oo gabadhu ay kaa fiican tahay muxubaha oo adiga iyo islaantuba
aday caadi ahayna aniga waxaan u dagaalamaa siduu sharafkaaga iyo sumcadaada iyo magacaaga iyo dhammaan magaca beesha uu kor u ahaa lahaa ma ahan fikirka qaldan lagaga kaa shubay nafariisi waxaan damacsanahay naga dhegeyso aan wax kuu sheegno nin adeerkaynaha tahay sharaf waa lacag aan lacag iyo wax isku duwan maya adeer horta waxaa waaye xilkan koraynaa hadda tuulaan taaganahay degmaan tegaynaa waxaan tegaynaa gobol waa ilaa heer qaran haye waxaa samaysatid waaye aan kuu sheego sharafta waa waxaa samaysatid in macnihi dadkaaga keliya aa u danaysid oo macnihi aad dadka boobtid oo aad dhacdidna sharaf maaha xilkan aa qabatay waxaa lagugu dhiibay ummadda soomaaliyeed lagugu dhiibay reerkii i yimid oo la yiri waryaa annaga inaan dhimano diyaaro ah rag iyo dumare noo xaji waa meesha yaalla war fiiri war reerkan yay ku waalin niyo nin wax bartana waa u egta kowdhe allahay ku abuurta ka cabso haddaa wax qabanaysid si daacad ah wax u qabo ummadda mid ha kuu ahaato kan kula dhasha iyo kan aa dhasha iyo kan kalaba mid ha kuu ahaadaan ummadda mid bay ka tahay waxa aa kan u qabanaysid kan kale wuu u baahan yahay wuuna kala siman yahay waana isugu mid marka waxaan ku dhihi lahaa aniga ciddaada keliya adoona fiirin waa inaa macnihii si daacad ah u qabato xilka laguu dhiibay oo lagu dhaariyay adeer horta waa sax talada aan kugu soconay waa taas waa xil qaran xilkan aad hayso ummadda shacabka soomaaliyeed ah ayaan lagugu dhiibay beel iyo oday habhableynayo afar jeebla ah iyo yay ku marin habaabinin nin qaranaad tahay nin magac lahaa tahay xilka waxaa lagugu dhiibay waa kartida iyo qarannimadaada madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo guddoomiye baarlamaan iyo wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo guddoomiye gobol iyo midna ma ihi tuulaan taagnahay adeer aan inta isku socda jaranjarata se alla ku yiro xilka tuulada lagugu dhiibaya wuxuu qayb ka yahay xilka qaranka waa isku raacsantihiin hadda intaas isku raacsannahay yaan lagu marin habaabinin nin qaranaad tahay bulshadaada u shaqeey tolkaagana kama maarantid laakiin adeer anigu oday hoosaan iska hay qaran iyo digdigtaas ma gaarine واي هو قاطي وانا لا قاط ادير وانا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورانو قرن iyo waxaas ma gaarin oday iska eertuulahan ahay waa iska qaatay bal acuudu billahi min shaytaan rajim ilaahay waxa qasay adeer haye saddex waa fiicnahay waxaan wadaa maanta wiilashii ku keenay maxaad ii keentay wiilashii ku ilaalin lahaa wiilashii ku wardiyeyn lahaa oo hawsha kula qaban lahaa ayaan wadaa maanta wari aniga ma maqlaysaa doonta haye war allah ka baqo waa ka cabsad ilaahay wiilasha aad sheegtay inta ay qalabkooda qaataan beerooda tacbadeen oo ummadda ilaahay hala nabadgeliyo anigu wixii aad igu shubteen ilaahay baa iiga gargaaray ummaddii baa igu kacday uga shubtay waxaan diyaar u ahay inaanan xoolo islaameedna cunin xil ummadeed oo dad ii dhiibtayna aanan mar dambe ku takrifalin waxaana waa iska wax tuulo dadka masaakiinta tuuladan joogan anigu xaqooda cuni maaye raalli iga hawada afkiisa maanta wanaaga ka baxa wanaag ma la qaadan anaga meesha ku galan galina inta uga haraa meesha u galan galaa waa la qaadan waa kula qaatay waa mahadsan tahay ehelkii noo geeye aan isku tagnay masuq diidnay masuq waa diidnay masuq bulshada ka dhashay halyeeriya waaye tigayda dhuuxo waa dhaxalgal taladwe bulshadan ka dhashay halyeeriya waaye urtigayda dhuuxo waa dhaxalgal taladwe waa dhaxalgal taladwe عذر دابو أسيبتا أنت مقلت إيفورا أنت ردوغتا عذر دابو أسيبتا أنت مقلت إيفورا إذن بالكودي حتى داكو شقيسا كنت إذن
shaqaysa dulka idina balgudi hadalka ku shaqaysa dulka idina balgudi hadalka ku shaqaysa wahag dhegeystayaal qaybtii hore ee barnaamijkii gaarka oo aynu kaga hadlaynay dhibaatada musuqmaasuq uu leeyahay iyo sida looga hortagi karo ayaad dhegeysateen haddaba dhanka martida ayaan iminka fursad siinayaa bismillaahi raxmaani raxiim horta corruption waa luqad aan soomaali ahayn oo waa english marka corruption la yidhaahdo laakiin waa musuqmaasuq soomaali musuqmaasuq wey marka ereyga musuqmaasuq waxa weeye waa erey xitaa dhihidiisa ama erey ahaantiisa xun oo dareemi karayso adiga laftaadu musuqmaasuq markii la yidhaahdo waxa weeye waa wax aan toos ahayn oo isdaba marsan sidii loogu talagalayna aan ahayn midda labaad oo aad weydiisay bulsho wuxuu ku yeelan karaa aad u xun oo waxyaalaha ragaadiya bulshooyinka ayuu ka mid yahay wadamada dhaqaalaha leh hadda Soomaaliya waaba wadan hadda aan waxba dhaqaalaha oo weyn aanay jirin hadda soo kabanaya laakiin wadamada dhaqaalaha leh ayaa aad uga qayliya oo sanad walba la soo sheegaa wadan waliba meeshuu kaga jiro musuqmaasuq marka waxaan oran lahaa musuqmaasuqu wadankan hadda Soomaaliya dib badan buu ku hayaa dibka uu ku hayana dadku way wada sheegayaan laakiin ma fahamsana sababaha looga hortagi karo sida aan qalaynayo marka waan ku maqlaay bulshada Soomaaliyeed sidee looga wacyigelin karaa musuqmaasuqa walaalow waxa looga wacyigelin karaa wata musuqmaasuqa dawladda kaliya ma xakamayn karto tabarna uma helayso musuqmaasuqu wuxuu u baahan yahay dawladda iyo shacabkuba inay ka howlgalaan khaasatan muhiimada ugu weyn shacabka ayaa la doonayaa inay ka qayb qaataan shacabka ayaa muhiimada ugu weyn iskale waxa uu saameynayo oo dhibka weyn u geysanayana waa shacabka oo ku soo noqonaya waayo shacabku ma fahamsana waxa uu dhimayo qofka bixinaya iyo qofka qaadanaya intuba ma fahamsana waxa uu dhimayo laakiin wax badan buu u dhimayaa wuxuu u dhimayaa hawlo badan oo u socon lahaa sidii loogu talagalay ama dawladda iyo shacabku ay uga shaqaysiinayeen ayuusan u qabanayn sidii wanaagsanayd uusan u marayn marka waxaa loo baahan yahay number 1 horta wacyigelin in lagu sameeyo shacabkuna ay musuqmaasuqa si wada jira uga hortagaan khaasatan qofku markii la yiraahdo waxa bixi waa inuu ka dooda uu yiraahdo maxaan ku bixinayaa miyaanan xaq u lahayn shaygan miyaanan maaragtay aanan doonayn for example yaran ku siinaya maalin dhaweyd bay ugu dhacday aniga bishii horaan u malaynayaa inay tahay meel baan tagay xafiis dawla ah marse ma doonayo inaan sheego xafiiska warqad baan uga baahday waxaan ku yiri waraaqdaasaan u baahanahay waxa la igu yiri waxaad samaysaa sawirro ma wadataa maya okay sawirrana soo sameeya baa la igu yiri lacag intaasana keen waan baxay sawirradii baan soo galay isla meeshii baan ku soo laabtay intaana ninkii joogay meesha aanan gaarin ayaa nin meel ka sokaysto isla xafiiska taagan yahay ninka wuxuu ugu yiri maxaad u baahan tahay waxaan u baahanahay waraaqda noocaasa okay waraaqdaas 3 cisho ilaa 4 cisho waxbay qaadataa laakiin waxaan ku heli karaa inaan hadda ku dhameeyo isla saacadan aad qaadato waraaqdii waxaan ku iri maxaa okay samee markaasuu yiri hadda ma ogoshahay wixii lagu samayn lahaa markaasaan iri maxaa lagu samaynayay waxa lagu samaynayaa uu yiri intaas dawladda loo qaadataa caadiyan soo laguma sheegin intoo kala ku daraysaa isla haddaadna qaadanaysaa shay waxaan ku yiri taasi waa musuqmaasuq mana doonayo haddii sidaas ay tahay 3 maalmood aan u dul qaadanaya hadday noocaas tahay maya maxaa dhibka ku gelinayuu yiri haddaan ku siinayaa lacag iyo dhabar baad bixin isla saacadan qaado ugu yaraan meeshaana waxa joogta dad 200 oo qofood kor u dhaafaya oo 3 maalmood inta ku waayay oo malaha week sugayay warqadan
على كل حال وحن قوان كجاري أنا هلي كري أنا بحيو يعني العقد أبو يرهاي بعد حتى لدون ويو عم بشيء كراي $5 هاي وحلا يجرب إلى لو شعنت اللي يجرب مركا وندي وحنا ندي إن أنا يوضبني إن نقول تحمل بحن كوير والله هو كذا في صدق مع الموضوع شيء بلنا قاعدة وضبن توصل تحفيز كان توصل تجي يا جوري sidii baan u tagay sawirradii baan dhiibay activists-kaan dhiibay waxaan sugayaa u malaynayaa 3 cisho ugu yiraahdeen 3 cisho ayaan tagay waa waayay waa ku laabtay adii 10 maalmood ka bacdi waan helay waraaqda ala kulli xaal anaa waxba bixin oo sidii rasmiga ahayd u maray marka waxaa la doonayaa shacabka Soomaaliyeed dhammaantood inay qaataan go'aan ah in aanay wax musuqmaasuq bixin qofkii ay ku arkaana lagu ceebeeyo haddaan taa la samayna horumarna lagama gaarayo lamana soo afjaro shayga la yiraahdo musuqmaasuq waxaa lagu soo afjari karaa shacabku ay qayb ka qaataan kan gaariga wada ee markii inta la joojiyo la yiraahdo halka mari maysid haddii kale soo tuur uu yiraahdo maya wax tuur la yiraahdo ma jiraan igee meesha degan lahayd markii loogu bato stationka la geynayaa qofku sharciyan buu marayaa marka shacabku inay fahmaan dhibaatada uu ku hayo musuqmaasuq ilaa ay fahmaan dadkani kama dulkacayo dawladuna ma xakamayn karto ilaa shacabku fahmaan waana in hay-ado arintaa ka dabagala oo anti corruption la yiraahdo ama anti musuqmaasuq ka hortaga in la sameeyo dawladdu samaysana waa taraayayga laakiin waan fahmay dawladda Soomaaliya heshiisyada caalamiga ahaa ee ka hortaga musuqmaasuqa ma aysan saxiixin ilaa iminka marka say ku fududaanaysaa in musuqmaasuq lagula dagaalamo hadii dawladdu heshiiskii weynaa caalamiga ah ee ka hortaga musuqmaasuq aysan saxiixin wali waa ma santahay wallahi waxa ka horeeyaan anu qabaa dawladda waxyaalo badan caqabado badan baa hortaagan dib badan baa haysta waa dawlad curdun oo cusub wax walba ma qaban karayso hadii la yiraahdo shay walba la saxiixo oo aanu fulin saxiixani waxba weyn oo kordhinaya ma jirto kaliya arinta ugu muhiimsan waxa weeye in la fahamsiiyo khaasatan meediyaha oo idinku kamid tihiin inaad had iyo jeer yani dhagaha dadka shacabka aad ku badisaan dibka uu musuqmaasuq u leeyahay bini aadamka ama dib u dhaca uu ku sameeyo waayo wax istreedi hadaanay jirin bilkulliyan ba shay waliba uu yani noqonayo in wax lagu daro wixii dawladda loo subilaamo yar wax kale lagu daro waxa ma soconayaan dawladda shaqadeeda dhan way istaagaysaa shaqaaluhu si daacada uma shaqaynayaan shacabku si toos ah uma helayaan waxa maqlaysaa dad isbitaaladan yaryar ee maaragtay mashiinada ama isbitaaladan yaryar ay sameeyaan dadku dawooyinka yaryar laga bixiyo in qof uu yani 9 saac habeenimo 8 saac habeenimo soo dheelmanayo qofkaas sidoo online ugu jiro ayaa mid wuxuu imanayaa 3 saac subaxnimo markii la furo markaasuu leeyahay qofkii 3 saac yimid toos u gelaya qofkii oo meeshii taagan wixii uu doonayay iyo dawadii iyo linkii number baaba loo sii haya marka waxyaalahaasi waa waxa cuuriyaamiya ummadina inta ay ka musuqmaasuq badan tahay ummadaha kale way dib ay uga hartaa dawladda marka ma dhaliilayo waxaanan u dhaliilayn dawladda caqabadaha haysta ayaa aad u fara badan corruption-ka dhaqaale ku filan oo shaqaalaheedii dhaqaale ku filanna ma hayso marka hawsha u istaagideeda shacabka laga doonayaa mooyaane dawladdu way kaabaysaa laakiin qolada laga doonayo ee rasmiga ah waxa weeye waa shacabka aad oo maasan tahay Axmed Cali Maxamuud waan kaga mahad celinayaa sida haboon ee aad igala qayb gashay barnaamijka ay walaal ala mudan waa maasan tahay shukran jaziila qaybaha qaadka telefoonada dhageystayaasha ayaan markan fursad siinayaa haddaba dhageystayaal waxaad naga soo wici kartaa si fudud si aad dooda uga qayb qaadato telefoonka وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ساكي عبد العزيز عبد الله محمد حيلي حبيبي في المقامة هي أصحاب الوكيل السوري باينت الحربي دي المرشد قالوا كان بشيء برنامج كان كفر قاعدتي الله هلا ساكي بلبنا wanaagsan oo wacan marka hore walaal magacaaga iyo deegaanka aad naga soo wacayso هذا ساكي مدعنا وقود من أيضا عبد الرحمن إبراهيم حاشم اللي يقال باشميرة خلاص بقال عبدنا الشيء كان الكوت ما نبالي كل كذا haddii barnaamijka la socotay soo dhawow fikir ahaan sideed u aragtaa laaluush in shaqo lagu fududeeyo ما تنسى ساكي عبد العزيز عبد الله إن قرأت حالي لا يا بس ما سوق سيد باب ركتا إن وحياة كثيرة مدالنا محدثو
haye in badan cabdicaziiz horta musuqmaasuqa magaalada muqdisho waa ay ku badatay waxaad arkaysaa askar oo macnaha aan ka tirsaneyn dowladda federaalka soomaaliya oo wadooyinka iska taagtaagan oo biriiskii iyo wixii wataa qolihii baabuurihii oo weydiinayaan waxyaabaha macnaha aadaka aysan ku lahayn markii macnaha u yimaaday jooji balkeen gaarigaaga amba leesinkaaga amba transmitaalahaaga keen midiga qofka aan aqoon inuu ku isugo amba guriga amba jeedkiisa saasi intiina markii yiraahdo waan gartay adoo dulucda aadaya marka sidee u aragtaa laaluush in shaqo lagu fududeeyo aniga waxaan arkaa inay qaldan tahay laaluush macnaha inta lagu fududeeyo qalab inay tahay waxaan arrintaas laga doonayaa in dowladda federaalka soomaaliya ay wax ka qabato meel walba isgoys walba ee ciidankan midisuga ay geyso meelaha arrintaas dhaqanhayna inay ka qabato waa mahadsan tahay waan kaaga mahad celinayaa dhegeystayaal kale ayaan fursad siinayaa weli waxaynu bartan kaga jirnaa qaybihii dhegeystayaasha qadka xiga dhegeystaha ku jira ayaan jeclahay inaan fursad siiyo halo asalaamu calaykum وعليكم السلام walaal magacaaga iyo deegaankaad naga soo wacayso magacaygu waa Kaysadol waxaan joogaa suuqa xoolaha see lagu yahay si fiican oo lagu wanaagsan yahay ay barnaamijka la socotaan umalaynaya haa soo dhawow wadiyaad barnaamijka la socotay marka hore waxaan ku weydiin lahayn sidee kula tahay laaluush in markaasi shaqo lagu fududeeyo sidee u aragtaa runaantii walaalkii aniga ilama wanaagsan taas weliba waa wax laga yaqiiqsado sababtoo ah wadankeena Soomaaliya kaliya taas midaas ay gaar u tahay laakiin wadamada kale waa laga yaabaa inay saas yihiin dhibaatada musuqmaasuq uu keenayo maxaad nooga sheegi kartaa walaal wax badan waaye waxaana kamid ah dadkii oo isnaco haye wax badan waaye waa mahadsan tahay waan kaaga mahad celinayaa sida habboon iyo weliba qaabka barnaamijka aad nagala soo qayb gashay dhegeystayaal kale ayaan weli fursad siin doonaa si ay barnaamijka markaa noogala qayb qaataan barnaamijkani waa barnaamij gaar oo in kaga hadlayna dhibaatada musuqmaasuqa uu leeyahay dhanka farsamada waa farsamayaqaan qadar xuseen axmed qadar yare iyo weliba nasri cabdikariin xuute waxaa barnaamijka la socodsiinaya anigoo cabdicays cabdullaahi maxamed riyeli balse iminka dhegeysta kale ayaan jeclahay fursad siiyo si uu barnaamijka nagala qayb qaato halo asalaamu calaykum waan dhawahay walaalkay waa qaali cabdisalaan axmed oo ku magac dheer maxaa dhahay degmadii lagu agaalajaan qaadis caafideeda shaqanti haye in badan walaalkay dooda waan la socda macnaha musuqmaasuqa macnaha kaleydaba waa dhib macnaha aan dowladda ka tirsaneyn misana xididka istaagaya dadkii macnaha lacagta ka qaadanaya kaleydaba dhibkeeda leedahay hadhowna dhibaato fara badanaa ka imaan karta soomaalidana waxay uga hormar kartaa arrinkaas gacmaad qabsata marka haddii aan ku weydiiyo ma sheegi kartaa dhibaatada uu keeni karo musuqmaasuqa haddii uu sidan u socdo ama musuqmaasuq uu dhaco dhibaatada ka imaan karto maxaa kamid ah in badan dhibaato badan ayaa ka imaan karto taasoo ah inaad dowladda ka tirsaneyn macnaha waxa cadeyna watana aan la arag macnaha dadkii dowladda ka istaaga dhibaato badan ayaa ka imaan karto macnaha dadkii iskhilaafo dadkii noocaas amar la-aan oo ku jiro dhibaato badan ayaa ka imaan karta maanta walaalkay ma isku daday weli qodobada dastuurka ku qoran ee ka hadlaya musuqmaasuqa inaad wax ka akriso amba in aad ogaato qodobada sheegaya in dowladda lala xisaabtami karo aniga weli iskuma aana gelin waa mahadsan tahay halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaaga marka hore maxamed axmed maxamuud maxamed barnaamijku waa la socotaan u malaynayaa aad iyo aad ula socday waxaan kaala soo hadlayaa deegaanka gubadley ee duleedka magaalada muqdisho soo dhawow bal fikirkaaga ku aadan musuqmaasuqa iyo sida looga hortagi karo iyo saameynta bulshada uu ku leeyahay intaba walaala musuqmaasuqa magaalada maaragtay dhibaato weyn uu ku hayaa dadweynaha shacabka soomaaliyeed dhibaato uu ku hayaa waxaa looga hortegi karaa in culimada diinka soomaaliyeed oo cadaalada sharciga loo dhiibo ma garad haye sidaas ila taani marka musuqmaasuqa saameynta uu bulshada ku leeyahay bulshada qudheeda sidee uga hortegi kartaa bulshada qudheeda bulshadan waxay uga hortegi kartaa in maaragta dadka wax fahmaayo oo aqoon-yahanada dadkoo naftooda ay ka hadlaan sida idinka raadiyaha camal saas oo kale aniga ay ka hadlaan oo maaragta dadka la fahansiiyo dadka aqoonta lana wax loo dhiibo saasay ugula fiicanta weli ma isku dayday in aad ka doodo amba ka hadasho musuq iyo waxa uu ku saabsan yahay musuqmaasuqa caddaysa isha ku haysa arkaysaa laakiin maba lagula soo hadlaayo maaragta warkaa maba soconayaba macnaha waxaad ka taha maaragtay nina maaragtay maaka day aad ka taha bis waa mahadsan tahay ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa marka bulshada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in alla loo noqdo culamo diinka soomaaliyeed in loo dhiibo hawsha
waa mahadsantahay waan kaaga mahad celinaya fikirkaaga iyo barnaamijka sidaad uga soo qayb gashay deegaanka Gubadley dhegeystayaashu waxay naga soo wici karaan taleefanka 644 si ay uga qayb qaataan qodobka dooda fikirka ku aadan musuqmaasuqa qaybaha uu ka kooban yahay sida looga fogaan karo iyo saameynta bulshada musuq uu ku yeelan karo halaw galab wanaagsan walaal magacaaga Xuseen Maxmed baan leeyahay aasooga suuqa xoolaha haye walaalow musuqmaasuq Soomaalidu ku badan yahay haye waxay yiri musuqmaasuq hore hadda mar u yeelay awal hore miskiin buu ahaa caafimaad midkan baa galay markaan iyo markii hore markaan musuqmaasuq badan walaal qofkii wax tara oo wax qabta ee wadanka wax u ah iyo qofkii leeyahay qasaarinaya isku doon bay saaran yihiin marka nin walba wuxuu leeyahay awal baan dib lagu raacay waxaa la taqaanaa buuxso tobanka bari aad joogta marka sidaas ayaa musuqmaasuqa dowladda dhiiri gelinaysa loo maamulo bulshada lagu kala maroon midnimo waxba loogu qaban waxaana barnaamijkeena socodsiinaya anigu Abdicays Cabdullaahi Maxamed Riili ah waa bahdii barnaamijka oo isku duuban oo idinla inta barnaamij midkan lamid ah aynu ku kulmayno nabad galyo ayuu musuqmaasuq yahay mas'uuliyadiyo xilkaasi kale loo maamulo bulshada lagu kala maroon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo wadaha loogu dhaco musuq yahay siyaad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogow na maqal wuxuu musuqmaasuq yahay si aad uga maarsataan micnuhu haydin dhacee ninkii moogow na maqal